ومالين قف كستو سومالي كوي سببتو قف كستو سومالي هو ku abtirsanaya macallin maskaxdii dunida maraasan mawjadaheeda kii macneeyay ee kala miiray maankii qarsoona macallinku waa hal la lisaayo hashal la lisaayana waxa laga ilaashaa gaagax ayaa laga ilaashaa dunida waxa la xusaa maalmo aad u tiro badan waxaan aad ugu hambalyeynaya macallimiinteena Soomaaliyeed macallinku maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay markii qarsoona maalinta macallinka Soomaaliyeed 21 November waa maalin weyn waa maalin xirfadle kasta oo macallin Soomaaliyeed ku weyn waxaan ku soo dhex jiray hadda 15 sanaan maraya laakiin waxa aad farxad iigu ah hadda institutionka waxbarashada joogo waxa ila jooga hadda aan hambalyadana la wadaagaya aniga macallimiintaydii qayb ka mid ah sidoo kale iyo ajiyaal anigu aan soo saaray oo dugsiga sare haddana macallimiin nagala ah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta kale inaan joogo macno weyn bayna igu fadhidaayo maalmaha kaloo la xuso kulligood waa iga duwan tahay macallinku waa qofka keli ah noloshan bulshooyinka iyo shakhsiyaadka tartanka ku jiraan oo la challenge gareynayo oo la tartamayo macallinku waa qofka keli ah ee intuu ku soo hor istaago ardaygiisa adigoo ah ogol inaad improvement hagaagtid fiicnaatid uu kugu arko meel sare oo xitaa isaga ka sii sareysa oo ka wanaagsan inuu kugu arko oo ay faan iyo laab qaboojis u tahay macallinku waa furfuraha hagaha fududeeyaha manaahijta wadan waliba ay dejisatay macallinka ayaa furfura waa soo saaraha mustaqbalka iyo ubadka maanta jooga ee bari xukumi doona iyagu wadanka habeeyaha iyo isku dubaridaha soo saaraheedu weeyaan waa maalin ku taala qulubta macallimiinta sababtoo ah maalinta macallinka waxa la xasuusiyaa muhiimadda uu leeyahay iyo sumcadda iyo bulshada iyo xuquuqda uu ku dhexleeyahay inuu yahay tiir ka mid ah tiirarka noloshooda laakiin waxa maragma doonta ah qofka kali ah oo runtii xusidna mudan aad xusid u mudan waa in macallinku uu yahay qofka kali ah ee deegaankii ku laabtay ee haddana nolol ka bilaabay waxbarasho ka bilaabay xaaladaha qaarkood lagaaga sheekeynayo geed hoostiis inuu ka soo bilaabay daasad caana boore in lagu fariisto uu ka soo bilaabay ilaa markii dambe uu heer sare soo gaarsiiyay teknolojiyadda jirta in looga faa'iideysto horumarinta waxbarashadeena noocay tahayba teknolojiyaddu ugu horeyso in looga faa'iideysto habka waxbarista lagu horumarin karaa methodka fiican baa loo adeegsan karaa ee xaalamidka ah fursado badan way jiraan oo macallinka casrigan jooga oo haysto oo ay ka mid yihiin inuu resource tiro badan heli karo ay ka mid yihiin communicationka iyo xiriirka ardayda la sameyn karay ama si guud wixii ardayda siin karay xogta ardayda siin karay inay fududahay sahlan tahay si sahlan uu ku siin karo oo fudud waxa weeye waxa kaliya oo macallinku haystaa waxa weeye waa inuu bulshadii qof muhiim u ku yahay oo dad uu beertay soo saaray ardadii uu dugsiyada ka saaray ayaa meel walba iyagoo madaxa jooga marka waxa la oran karaa taasina waa fursad weeye gaar u ah macallin hadduu dhakhtar yahay macallin baa soo saara hadduu yahay siyaasi noqonaya macallin baa soo saara injineer hadduu yahay macallin baa soo saara nooc kasta oo qofka bini aadamka ah nolosha uu filiga uu kaga biiro waxa soo gardaadiya maskaxdiisa soo koriya wax ku soo biiriya aqoontiisa jahliga mugdigiisa ka saara waa macallin ma jiraan caqabado macallinka Soomaaliyeed haystaa waxaan isleeyahay waa su'aal madoonto oo caqabaduhu way badan yihiin ha ahaadaan ha ugu waaweynaadaan aan dhahno aragtida khaldan ee bulshadu si guud ayaamahan dambe in aragtida bulshadeenu ay ka haysato macallinka ama xirfadda macallinimada inay tahay aragti khaldan oo loo arko xoogaa
mihnad hooseysa iyo wax la mid inay tahay marka qaar baa maaragtay la dagaalamaya ama maaragtay amni darro mararka qaarkood bulshada kala kulmaan mararka qaarkood deegaanada qaar waxaa ka dhacaa in macalinka ama la dilo sida mararka qaarkood dhacda ama la dhaawaco waqtigii dawladdii hore annaga aan wax dhigaynay iyo waqtigan haddu isku mid maaha waqtigii dawladdii hore jirtay caqabad saasa ma jirin ubadku waxay ahaayeen dad maaragtay u jajaban inay wax bartaan oo hami waxbarasho ku jiro sidoo kale waalidku wuxuu ahaa haddii ilmuhu xataa khalad galo oo ilmaha la soo waxyeelayo inuu waalidkuna u lagu sii dari jirtay waa dhici jirtay laakiin maanta caqabadaha taagan waxaa ka mid ah haddii ilmo khaldamo oo mararka qaarkood xoogaa ama ul yar lagu dhufto ama la canaantaba in mararka qaarkood aad arkayso in waalidkiiba ka soo horeeyo waxaan xasuusanaa waagii hore qofka macalinka ahi wuu ka duwanaa si guud xirfadaha kale ee bulshada ay leedahay maqaamkiisuna aad u sareeyay laakiin burburkii kadib waxaan dareemaynaa inuu iyadoo haddana aad arkaysid in cidda keli ah oo burburkii markuu dhacay oo dowladdii meesha ka baxday cidda keli ah oo intay isxilqaantay deegaanadii ku laabatay waxbarasho ah ka bilowday ay macallimiinta ahaayeen nolol ah ka bilowday ay macallimiinta ahaayeen haddana waxaa moodaa burburkii kadib in ay macallimiintu la kulmayeen dhibaatooyin kala duwan iyo aragti bulshada oo khaldan ma helo mushahar ku filan oo macnaha mushahar aad iyo aad ugu filan macallinku ma helo sidoo kale macallinka waxa dhacda mushaharkiisa inaanu hal mar wada qaadan hadduu doono oo waxa weeye sababtoo ah waxbaa la beeqaamiyaa dadka wax laga mushaharka meeshu ka qaato macallinku oo il u ah waa ardada weeye ardada bulshadana waxa weeye waa bulsho inta nugul baa badan marka hadba sidii wax looga helo ayaa wax loogu beeqaamiyaa marka hal mar mushahar lama wada mushaharka macallinka lama wada si caqabadaha iminka macallimiinta haysta ayay ka mid tahay caqabadahaas haddii aan maaragtay xal loo helina waxaa laga yaabaa inaanay maaragtay macallinimadu qiimihii hore ay u lahaan jirtay ayna u lahaanin macallinku waa iftiimiyaha adduunka waatii heestii hore lahayd waa cashal la lisayana waxaa laga ilaashaa gaagax ayaa laga ilaashaa waxa weeye waxaa laga ilaashaa wax walba oo wax u dhimaya ama gaagixinaya si aan caanihii aanay ula noqon marka macallinku waa saas oo kale macallinka waxaa la rabaa inaan la gaagixin in waxa weeye aad iyo aad loo ilaaliyo xuquuqdiisa la tixgeliyo marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay sidaa darteed macallinku bulshada lagama maarmaan ayuu u yahay xagga bogaadinta haddii aan u soo leexdo waxaan bogaadinayaa oon u hambalyeynayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba inay maaragtay ku dhabar adeegaan oo ay soo saaraan jiilalkii berri xukumi lahaa waddanka xukumi lahaa oo habaysan ay soo saaraan dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan la qaybsanaynaa farxadda weyn waxaan baliyo ugu dirayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in la soo gaaray maalintii macallimiinta adeegga deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afargees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan